السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبة قاليقو هو سودوادا كسودوادا maantii muuqaal kale waxaan idin soo gudbin doonaa xigmad yar oo waxtar leh balse intaanan u gudbin xigmadda waxaan idin soo gudbin doonaa ama aan ka hormarin doonaa qiso yar oo ku saabsan ama ka turjumayso xigmaddeena si aan u guda galno muuqaalkan fadlan haddii ay tahay markii kugu horeysay ee halkan ugu soo booqatay ha iloobin inaad subscribe saartid channelka isla markaana fiidiyowga like noo saartid waxay noo noqon doontaa dhiirigelin mahadsanidin waxay ahayd barqo boqorka kaynta libaaxa waxa uu jifay geed har weyn mar ay hurdada meel fiican u mareysay ayaa waxa uu imaaday dooli ama jiir waxa uu bilaabay in uu ku dulboodo libaaxii ayaa si dhaqso leh u qabtay dooligii ayaa ku cabaaday mudane iska kay cafi mar dambe ma kugu ciyaari doono mana iloobi doono abaalka ii gashay maalin un ayaan ku gudi doonaa libaaxii ayaa ku qoslay warma adiga ayaa ii abaalgudi doono isaga oo quursanayo ayuu markaasna sii daayay maalmaha kamid ah ayaa ugaarsato waxa ay shabaqa ku rideen libaaxii geed weyna way ku xireen isla markiiba waxaa meel fog ka arkay dooligii xagga libaaxa ayuu soo orday wuxuu bilaabay xarigii shabaqa inuu jarjaro ugu dambeyntiina wuu ku guuleystay inuu sii daayo libaaxii ayaa ku riyaaqay uuna u mahad celiyay dooligii xigmadda sheekada weligaa qofna ha quusanin sababtoo ah ma ogid awoodda u qarsoon waan filayaa inaad ka hesheen muuqaalkeena fadlan ha iloobin aan ku xasuusiyo inaad like saarto fiidiyowga subscribe na dhahdo channelka mahadsanidin